bismillaahi raxmaani raxiim fadlan ku soo dhawaada youtube-kayga qisas si xushmad leh waxaan kaaga codsanayaa fadlan haddii aad youtube-kayga ku cusub tahay inaad subscribe ii saarto fiidiyogan ilaa like ii saarto. maanta waxaan ka hadlaynaa qiso ama kiis aad iyo aad u xanuun badan, waana kiiska Amanda Blackburn. wuxuu ahaa dilkii ugu naxdinta badnaa ee ka dhacay magaalada Indianapolis, waa magaalada Indiana ee dalka Mareykanka. Amanda Blackburn waxay ahayd haweeney 28 jir ah taasoo lahayd uur 12 toddobaad ah, waxaana la toogtay iyadoo ku sugnayd gurigeeda 10 November 2015. 10 November 2015 ayaa lagu toogtay gurigeeda iridiisa. Amanda Blackburn waxaa lagu dilay weerar guri oo dhacay intii lagu gudi jiray habeenkii, iyadoo joogtay gurigeeda hortiisa, iyadoo ay la socotay wiilkeedii yar ee 1 sano jirka ah, mid kalena caloosha ku waday. ninkeedii David Blackburn ayaa guriga yimid kadib markii uu weerarka dhacay, isla markiina wuxuu ka war helay Amanda oo dhaawac ah, iyadoo la qaaday isbitaalkana la geeyay. Amanda iyo ilmaheedii uurka ku jiray ayaa ku dhintay dhaawacii soo gaaray. Amanda waxay ahayd hooyo uur leh taasoo 12 toddobaad uurkeeda lahayd markii uu dilka dhacayay. waxaa la tilmaamay in weerarka uu ahaa mid loogu talagalay. waxaa la tilmaamay in ku talagalka weerarka uusan ahayn dil, balse uu ahaa xatooyo guri, taas oo nafta ay ku waasay Amanda Blackburn iyo wiilkeedii ee caloosha ku waday. bilowgii hore waxaa jiray hadalhayn ku saabsan ninka Amanda David Blackburn inuu ku lug lahaa dilka Amanda, laakiinse baaritaano dheer kadib ayaa caddeeyay inuusan wax lug ah ku lahayn. baaritaano dheeraada oo la sameeyay waxaa soo baxay ama caddaatay in Larry Taylor oo 16 jir ahaa iyo rag kale ay ka dambeeyeen dilka Amanda. Taylor iyo kooxdiisii ayaa laga sheekiyay inay ku lug ahaayeen xatooyin kale oo dhacday isla habeenkaas, waxaana la sheegay in toogashadii Amanda aysan ahayn ku talagal, balse markii ay dhici rabeen ay iska celi maagtay inay toogteen. Larry Taylor iyo asxaabtiisa ayaa maxkamadda la soo istaajiyay, waxaana lagu heystay dilka Amanda iyo wiilkeedii caloosha ku jiray, kaasoo lagu magacaabo fatal homicide, iyo dambiyo kale oo fara badan oo arrinkaas la xiriira. waxaana lagu xukumay dacwadaas, waxaana la siiyay xukun adag sanadka markuu ahaa 2019. asiga iyo asxaabtiisa ayaa la kulmay xukun aad iyo aad u adag, dhammaantoodana waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. kiiska Amanda Blackburn wuxuu noqday mid si weyn ah looga hadalhayo magaalada Indiana. qisadeena maanta meesha ayaa kusoo gabagabaynayaa. fadlan haddii ay youtube-kayga ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto, fiidiyogana aad like ii saarto. insha Allah maalin walbana qiso cusub ayaa inta kusoo gudbin doonaa hadduu Ilaahay awoodda la karaal noqdo. fadlan adigana nagu soo biir oo subscribe dhaho janaalkeena qisas. aad iyo aad u mahadsan tahay walaal.